horta waddankeenu waxba ma soo saaro waxaana inta badan lagu keenaa alaabta dibadaha lagu keenaa waxaanu ku noolahay import iyo export ma lihin maadaama inaan export lahayna oo aanay export iyo import ku balance garaysnayna wuxuu noqonayaa dhaqaalaheenu mar walba mid liita buu noqonayaa shilinkeenu mid hooseeya buu noqonayaa inflation ka bixi mayno ana waxaan arkaa haddii la dhiirigeliyo small scale industrieska oo ay dadku samaystaan warshadaha yaryar kooban ee wax soo saarka kooban ee ku filan waddanka in lagaga maarmi karo wixii dibadda laga waxaan odhan lahaa Somaliland dadka cadaaladda deeqda cadaaladdu waa kiiga nolosha weeyaan iyo nabadda labadaba way tahay haddii cadaalad timaado nabad baa taala nolol baana imanaysa haddii nolol timaadana nabad maxay hadday nabad timaado nolol baa imanaysa marka cabashooyin badan baa jira Somaliland oo runtii aad looga cabanayo amba dawladdii hore imika tagtay dhamaatay ha noqoto tan dambe runtii imika way cusub tahay oo boqolkii cisho ee dam garanaysa yani aynu ku qiyaasi lahayn wili may gaarin laakiin cabashada faraha badan kulley meel dab ka baxaya meel qiiq ka baxay dab baa jira Soomaalidu maamaad meel qiiq ka baxayo dab baa jira marka dabka dawladda ha baqtiiso si wanaagsan ha u baqtiiso dadka cabanayaan hala dhageysto waxay ka cabanayaana maxay hala dhageysto taxanaan lahu xaq wanaag ha loo dhaqo haddii aynu isdhageysano ama qof walba fakarku hayo ama sida aynu adduunka dhinaceena uga raaci lahayn aynu afkaarta isku darsano inaynu wax badan waddankeena Somaliland jamhuuriyadda barakaysan aynu wax ka qabsan lahayn ra'yigayga aniga waxaan qabaa wax walba waxa ugu horeeya wax soo saarku waxa weeyaan horta marka ugu horeysa quutal daruurigaagii aad cunaysay baad soo saaraysaa oo lacagtii adkayda dibadda kaaga baxaysay ayaad bangiga kuugu xasilaysaa marka labaad ee aad sii kordhiso ee tadawirkaagu u sii bata marba marka ka dambaysa waxba laga yaabaa inaad gaadho inaad adduunyada qayb wax soo saarkaagu gaadho beautiful horta iskaa wuxuu qabsadaa runtii anuu markaan ahaa standard 1 iyo 2 iyo 3 iskaa wax qabso waxa bilaabay oo Somaliland oo dhan ogtahay wuxuu ahaa مشاريع ninka loo jiray Ilaahay u naxariistay Cabdiraxmaan Tuur oo bilaabay oo isagu runtii iska wuxuu qabsada ninka garanaysa aniga iyo dadkii la midka ahayd sugdaadayda aan ognahay inuu mashaariicda ninkaasi abuuray iska wuxuu qabsada oo ka fuliyay markii ugu horeysay Somaliland waxaan oran lahaa danyarta in la daryeelo oo hore loo mariyo oo mataqaanay wax qabadkooda iyo wax soo saarkooda la taageero sida beeraha kale sida kalluumaysiga kale sida dadkan wax soo saarka aad iyo aad la sameeyo taana dawladuna ay aad iyo aad ay ilgaar ay ku eegto iyagoo hadaan wax kale u qaban karin in canshuurta bal laga yara dhimo oo lagu kordhiyo dadkan lacagta haysta taajiriinta ah ay wax soo saarkoodu fara badan yahay in canshuurta iyaga lagu kordhiyo si looga yareeyo dadkan tan yarta loona kaabiyo si dhaqaalahoodu u dhismo sababta waxa loo baahan yahay dadkan danyarta haddii aad dhaqaalahooda dhisto dalka dhami dhaqaaluhu helaya waa la sinaanaya kalluunka kama faa'iideysano oo kalluumada ugu wanaagsan ee maal ugu fiican ee la yiraahdo kan tuunaha oo kale ayaa waddankeena ku badan kalluunkaas aad baa looga faa'iideysan karaa waxaan maqlay kaliya shirkad ama 2 ama 3 xubba ka faa'iideystay laakiin waxaan ahaa aan soo jeedin lahaa inuu noqdo export weyn oo la furo oo shirkadadan ay ka ganacsadaan loo furo oo kalluunkeena dibadda loo iibgeeyo oo marketing fiican loogu sameeyo dibadaha si ay u noqoto wax soo saar aynu dhoofino isku qabsanay waxay soo doonanaya waa kalluunkeena inaguna iyagoo soo bareeraya waliba in la qabsado oo ransom laga qaato ayay inaguna keenni ka aynu ka baahi qabnaa marka waxaan qabaa in aan kalluunkaas laga faa'iideysto waayo waa khayraadka ugu badan marka la eego aynu dhoofin karno waxaan xusuustaa Churchill prime ministerkii dalkan dagaalkii labaad ee adduunka
su-aal la weydiiyey oo ahayd dalkan UK ma iska celin karaa dalka Jarmalka oo maanta xitaa France qabsaday idinkuna aad ku xigtaan oo duqeynaya markaa oo London laga dhigay deegaaniga jawaabtii bixiyo waxa ahayd haa intay cadaaladdu noo shaqaynayso Jarmalka waa ka adkaan karnaa cadaaladdu si hadaba u shaqaynaysa dal la burburinayo oo la garaacayo oo maalin kasta intaasoo boqol ay dhimanayso dalkan wuxuu leeyahay dhusunka ama tareenada dhulka hoosta mara baa maxkamadda lagu qaadi jiray oo qofkii waxada ee dhulkaa la duqaynayo soo booba cadaaladda loogu sima jiro lagu qaadi jiro lagu maxkamadayn jiray laguna xidhi jiray taasina kaga adkaadeen Jarmalkii markaa Yurub dhabarka gaaraya qodobka ugu horeeya waxa weeyaan in aynu wax ka bedelno habdhaqanka iyo sida aynu u fikirno ummadeenu u fikirto oo ah imika mid ummad hab dhaqan caajis ah oo aan shaqo u diyaarhayn oo aad arkayso kii xoolaha lahaa iyo kii beeraha lahaa iyo kii magaalada joogay oo dhammaantoodba aroortii qaad u fadhiisanaya shaxaad ka fikiraya in wax soo saaraan amba xoolihii amba beerihii aan ku fikirayn taa horta inaan wax ka bedelno ayaa runtii aad iyo aad loogu baahan yahay oo ummaddu ay noqoto ummad ku fikiraysa shaqo qofku inuu shaqadiisa la soo baxo maanta waxaa dhacaysa inuu qofku ku fikiro inuu barwadiisii qaadkiisii sigaarkiisii iyo beelkii reerkaba inuu shaxaad ku soo saaro oo meelaha qaarkood la sheegayo xoolihii oo la dabrayo dadkii kaamamka jooga xoolihii ay dabrayaan intay qaadka cunayaan iyo dadkii beerihii oo aan beerihii qowlanayn oo dhul badan oo beerihii ka mida ay dhirtii ka baxday imika for example dadkeenii wadinka arkaya xoolihii way ka dhammaadeen xoolihii markay ka dhammaadeen waxaa la sameeyey dee meelay magaalada dusheeda iyo meelahaas magaalada iyay qaxuunti ku noqdeen sidii qaxuuntun bay iska yihiin marka miyaanay dowladdu ahayn inay dadkaas xooggooda isticmaasho oo ay beero ay inta hirigtara loo sameeyo beeraha laydhaa beerta wixii 2 iyo 3 iyo 4 wixii neefafo hadheen inay ku dhaxaystaan iyagoo beertoodana ay beeranayaan wixii adduunka la leeyahay qaxuunti baan haynaa dad baa nagu maxay abaar baa nagu dhacay naga caawiyo miyaan beertoodaasi marka dambe dadka aan iyagu filaanayn wax soo saarka dalkana xutan wax soo saar noqonayaan maxay dadkana maxay iyaga laftigoodana nolol maalmoodkoodii iyo noloshii hore grafkayda kaga baxay ilmihii waa in la baraa wuxuu berri toolo wadankii kaga shaqaysan karo xaqiiqda wadankeennii taalaana waxa weeyaan imika haddaad shariikadaha dhismaha oo dhan aad tagto dadka farsamo yaqaanka oo dhan haddaad shariikadaheena aad tagto qofka marmarka dhigaya ka ranjiga ee samaynaya ka maxaan ku dhahaa guryaha marka la dhiso qurxinta ugu dambeey samaynaya waxa dhan waa ajaanib dad ajaanib aynu soo kaxaysanaa cid samaysaa ma jirto inaynu dhalinteenna wax barno oynu apprentice aynu vocational trainingka la siiyo oo even compulsory lagaga dhigo inanka jaamacadda markuu ku jiro in sanad laga weeciyo uu barto maaragtay wuxuu ku shaqaysto jaamacaddiisana ha dhigto taasaa muhiim oo bari doolo hadduu accountancy soo bartay dee shariikada xisaab loo sameeyaa ama maba jiraan oo warshado wadankii ka